wararka naga soo gaaraya duleedka degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa ku waramaya in weerar jidgal ah lagu qaaday gaadiid ay wateen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya kuwaas oo maraya duleedka degmada Balcad. Gaadiidkan ay wateen ciidanka ka tirsan militariga Soomaaliya ayaa xilli ay marayeen inta u dhaxaysa degmada Balcad iyo tuulada Gololey waxaa la sheegay in marka hore loo dhigay minada dhulka lagu aaso isla markaana laga haga meelaha fogfog kadibna weerar jidgal ah ay ku qaadeen xubno ka tirsan dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab waxaana halkaas ka dhacay dagaal sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Dad ku sugan degmada Balcad ayaa waxa ay soo sheegeen in gaadiidka ciidamada oo ka yimid dhanka magaalada Muqdisho xilliga lagu weerarayeen oo marayay wado qadajeexa oo u dhaxaysa magaalooyinka Balcad iyo deegaanka Gololey ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Al-Shabaab ayaa la sheegatay mas'uuliyadda weerarkaasi waxaana ay sheegeen inay dileen 5 askari oo ka tirsan ciidamada lagu weeraray sidoo kalena ay gubeen mid ka mid ah gaadiidka dagaalka. Wararka la helayo ayaa sidoo kale waxay sheegayaan in gaariga Al-Shabaab ay gubeen uu ahaa gaari bila ah gurmad ahaana ugu tagay ciidamada lagu weeraray halkaasi kaas oo ka ambabaxay degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Saraakiisha ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamulka degmada Balcad weli kama aysan hadlin khasaaraha ka dhashay. Sidoo kale waxaa xusid mudan in dhowr jeer hore weeraro kala duwan ay uga dhaceen wadada xiriirisa magaalooyinka Balcad iyo Jowhar oo dhamaantood ka tirsan Shabeellaha Dhexe. Al-Shabaab ayaa kordhiyay muddooyinkii la soo dhaafay weerarada ugu qaadaya saldhigyada ay leeyihiin ciidanka dowladda iyo kuwa amisom ay ku leeyihiin deegaanada Hirshabeelle.